Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. holac Somali TV subscribe please. Hello, waa 911 maxaan ka caawiyaa walaal? Gabadhaana way neefsanaysaa hadal xataa waa iga soo bixi waayey. Nin tuuga wuxuu noogu jira armaajadaas. Haddaba maalintaas aabbahay wuxuu imaaday xaafadda xilli dambe. Markaas hooyaday waxay ku tiri xilligan maxaa soo doontay? Markaasuu ku yiri meeqa saaca albaabka qaraacay mandhacadii ma dharbaaxa rabtaa inaan ku aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Ibtisaam. mar walba muraayada isku fiiriyo aabbahay dhaqan xumadiisaan soo xasuustaa. hooyaday dharbaaxa u geli markaasuu igu yiri Ibtisaam kaale dharkiisana wada dhidid ma dhahdaa iyo biyaa ku daadsan. ana isla markii waan soo orday jaranjaradan soo fuulay. anigana waxaan dareemay shanqarta kabihiisa. hooyaday qabatay maya ninkeygii gabadha iska daa waxbaa ku sameyn. hooyana waxaan ku yiri maxaa u celisa ninkan yah ha imaaday aniga aqaanay aabbahay xataa hadduu yahay maxaa sida muxuu igu galaa may gabadheedan jeclaha tahay in dhibaato lagu geysto aniga ma jeclay agteydana qaaliyaa ka tahay Ibtisaamay. naamando cadde iga foq. sidoo kale hooyaday haraantii u geliyey annagoo soo orday. waxaa sameeyaa garan waa armaajada isku qariyey aabbahay haddii cabsida waxaa waa carruurta si xun u dilaa. anigana isla markii waxaan wacay 911 walaal maxaan ka caawiyaa war iga soo gaara aabbahay wuxuu rabaa inuu i dilo hadda waxaan ku dhex jiraa armaajada dharka. okay xaafadda intee waay? downtown waay Los Angeles dhaqsada. walahi aad baan uga xumahay hooyaday korkeeda dhan wada dhiig u ahaa aabbaheena haraantii ku dhudhufanaa. mando caddi meeqa maraan ku yiri aniga ima taqaani aqoonna ima lid. hooyadayna madaxiisaan ii dhadhahday macnaa carari ka wadi. anigana waxaan ku yiri stop haddii kale hee maxaa dhahday ku soo celi bal haddii kale hee maxaa iga qaaday. booliisaan ku wacay wax yar kadibna meeshaan imaanayaan indhihiisa guduudii noqdaan. markaasuu ii soo dhawaaday asagoo bir wato anigana kama ordin indha adeegade bis. markaasuu igu yiri yaa ku yiri waxaa samee awooddaas yaa ku sii yiray yaa aabbaa inaa soo moogid Ibtisaamay indhaan waaweynaan kaa ridi doonaa. markaasuu yiri waa ku dilaya caawa meelaa galleed sii qodo. midda kale khamraa ka ureysa ninkan bir dheer iyo suunna gacanta uu ku watay. isla markii suunu wejiga iga dhuftay dhaawaca i gaaray dhiig ana waa qiiliyey. naahedha yaa ku yiri qeeli adii hooyada cashira idin dhigaa timuu isoo jeeday meeshaana igu soo tuura. markaasuu yiri balan waaye inaa cashir idin dhigo aqoon mii leedin horta qofka ah. ninkan wuu qamreysnaa suunkan xanuunka ma dhahdaa macnaha wuxuu lahaa wax cirbadoo kale suunkan. ilaa amarkiis aabbahay si xunuu rabay inuu ii dilo. nasiib xumo wuu dhaca qamradayaa ka tambadisay. isla markaasna booliisa imaaday. hooyaday macaan cusbitaala la keenay. anigana waxaa is iray aabbaha hadda noloshaada wuu ka baxay nolol cusuba ay bilaabatay. laakiin aabbooyinka qaarkood halistooda badan asxaaga laaga saara. aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdifataax. sidoo kale waxaan ku noolahay Los Angeles. maalin maalimaha ka mid ah ay ku beegan tahay saacadu 8 saac oo galabnimo filina iska daawanayna aniga asxaabteyda si kadiisa taleefana soo dhacay. aniga taleefanka markaan qabtay kadib waxaan dareemay qof oo dhibaataysan. war aamusa bal saaxiib speakerka daarbal aan dhegeysanay. gabadhan waxay tiri aniga iyo ninkeyga waa isdagaalnay. sidoo kale xilli dambe xaafadda imaaday anigana weelashaan dhaqaay mindi dhulka taalay ayuu ku dul dhacay mindidii caloosha ka gashay. anigana waa iska difaacay. 911 Soomaa walaal waxaa rabaa inay caawisaan iga soo gaara gurigeyga waxaa waaye 505A
wuxuuna ku yaalaa street food. Isoo dhaqsada. Anigana markii dambe laptopkan ka baaray, gabadhan waxaa ogaaday inaan darisnahay. Saaxiibey maxay ii khiyaantay talow qoftan. Bis xabsigan go'aansaday inaan kusoo booqdo. Magaceeda Layla la yiraahdaa. Oh, askari, meeshan waxaa u joogaa gabar la yiraahdo Laylo inaan soo booqdo. Gabadha aqoon ma u leedanayo? Ma aqoon dheeraad uma lihi, laakiin asxaab leenahay. Okay, gabadhaas niyo waa dhimatay. Goorme xalay dhimatay sabab, laakiin gabadha xaloo dhan bay qaqaylinaysay, markii dambena way isdishay. Waa ka soo gaari weyne oo ka xunnahay. Midda kale waxay tiri number 911 wax walba idin sheegayo. Marka waxaa ogaaday numberkaas isoo wacday anaka ina ahayn. layga saar asxaabay. Waxaan xasuustaa inay sheekadan igu dhacday shaloo kale. waxayna ka bilaabatay sheekadan high schoolka. waxaa jiray jaamacado, college, waxa dhan hal meel ay ku yaaleen. iskuulkana aad buu u weynaa, qofna kuma lumi karo. haddaba maalin baa ani saaxiibtay Maryan waa wada sheekeysanaynay. ani waxaa la yiraahdaa Sabreen. haddaba fasalkan ku wada jirnay, anigana xisaabtii maana diyaarinin. markaasaa waa walwalay. saaxiibtay Maryan waxaan ku yiri meeshaasaan aadaynaa, xisaabtan soo wada qoranaynaa haddii saaxiibay. waan soo wada baxnay meeshii, waan imaanay. sidoo kale meeshan yaraanteedii imaan jiray. xasuus weyn igu reebtay waaye meeshan geedkan hoostiisa mar walba waa imaan jiray. saaxiibtay Maryan waxay tiri nahayda Sabreen aad maxaa ku heladee? maxaa ka qaldan? xisaabtaada maxaa u dhamaysan weyday saaka? macalinka hadee uu ku dilaa la soco. markii dambe waxaan imaanay university, ciyaal waxbarasho ku jiray oo PE u soo baxeen. PE waxaa la yiraahdaa carruurta fasaxa markii la siiyo ay ku soo dheelaan garoomada. saaxiibtay Sabreen waxay tiri nahayda kuwan meesha maxaa loogu fasaxay, waa inaan soo hubinaa. kadib waxay bilaabeen inay dhoodhoomasho meesha ku soo galaan. waxay maqleen bashanqar aad u weyn. macalinka waxay ila tahay carruurta inuu tumayay. waa ciyaalka waxay ku hay macalin hana tumin. meeshana bugdam ay ku haysay. yab saaxiibay Raxmo orod daaqadaan naga soo hube. nahayda iga daa, aad baan u cabsanayaa. Fardoosana waxay tiri naafulay xarka weyn soco. Raxmana way soo socotay, markaasi yaabtay. waxay aragtay derbiyada magacooda iyo lagu qorqoray sawiradooda. la yaab bay la noqotay, maskaxda dhana xanuuntay. waxay istirtalo meesha maxaa ka qaldan. cabaar kadib qaylo kale aan maqlay, qof qaylinaya. kadib boorsadii dhulka iga dhacday. haddaba gabadha ka tirsan iskuulkeena ayaa sheedaami balaayo ku dhaceen. kadib macalimadeena waxay ku haysay ka baxa gabadha maxaa uga baahantiin? lacag baan ku leenahay, haddiina siin weydana waan qaleynaa maandhocadda. aniga markaasaan naxay, waxaa isiri talo iskuulkan majiniye balaayo leey. xitaa mararka qaarkiis waxay la noqotay inaan filin horror ku dhex jiro, aan atariisho ka ahay. gabadhan magaceenay ku dhawaaqaysay Raxma, Fardoosa, Maryan iyo Sabreen. dhammaantiin waa idin dila, xaggee geli doontiin? cabaar markaan ka duruqnay aad bay u qoslaysay. gabadha markaa u soo dhawaanay waxaa dareenay indhaheeda inay aad u cadcad yihiin, afkeeda candhoofi daadinaysay. macalinkii ay imaado wuxuu yiri war socda, wasaqaya kalaasyadiina kala aada. waa soo wada cararnay. haddaba isbuuc kadib wararka waxay sheegeen gabadhan inay geedii kortay. kadib sheedaamay meesha ku noolaayay caysay. saasay sheedaama u dhex galeen gabadhan. wixii maalintaas dhacay waa rumaysan waayey, sababtoo ah xasuusta asxaabteyda weli maskaxdeeda ku taagan. Fardoosa, Maryan, Sabreen iyo aniga. sidoo kale weligaa ha isku dayin meelaha halista inaad aadid, balaayaa kaa soo raaci karto. asxaabay layga saara. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always ready.